wuxuu abaabulay weeraro iyo qaraxyo xasuuq weyn sababay oo intooda badan ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxyadaasi waxaa ka mid ahaa qaraxii ceelgaabta ee ka dhanka ahaa madaxweynaha March sanadkii la soo dhaafay 2025. weerarkii godka Jilcow October 2025. qaraxii Zobe 14 October 2017. qaraxyadii ka dhacay kulliyadda Jaalasiyaad. hargaha iyo saamaha 4 October 2011. Ex Control Afgooye 2028 December 2019. qaraxii ku magaca hasheeginkii ku magaca dheera. wasaaradda waxbarashada iyo Zobe 29 October 2022 oo kii u dambeeyay ugu weynaayo Muqdisho ka dhacay ahaa. qaraxyadii hoteelada xarumaha dawladda iyo goobaha shacabka waxaa halkan ku lifaaqan sawirkiisa Cabdullaahi isagoo jaamacadda dhiganaya. markuu dhiganaya laga soo helay intii ka dambeysay wuxuu Cabdullaahi ahaa ama injineer Ismaaciil in wajigiisa qariya oo aan aad loo arkin, laakiin ninkaasi waa kaas ah ciyaal Muqdisho ahaa. injineer Cabdullaahi Cusmaan Maxamed Abuukar ama injineer Cabdullaahi Cismaan Dheere ninkal oo loo yaqaanay kooxda gudaheeda injineer Ismaaciil waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho 22 bishii Juulaay 1982. wuxuu waxbarashadiisa dugsiga sare ka dhamaystay magaaladan Muqdisho, gaar ahaan dugsiga Imaam Shaafici sanadkii 2000. waxa uu 2002 waxbarasho u aaday dalka Suudaan. waxa uuna dhigaynayay jaamacadda Red Sea la yiraahdo ama jaamacad al-Bahr al-Ahmar kulliyadeeda engineering. wuxuuna sanadkii 2007 aakhirkeedii 8 bilowgeedii ka soo qalin jabiyay jaamacaddaas asagoo soo bartay culuumta electrical engineering. wixii intaas ka dambeeyay wuxuu ku soo biiray kooxda khawaarijta 2008. isla markii uu soo laabtayba wuxuuna bilaabay bilowgii horeba ka mid ahaa howlwadeennada ugu firfircoon warbaahinta Al-Shabaab. intii u dhaxaysay sanadihii 2012 ilaa bilowgii 2025 sanadkii hadda dhamaaday wuxuu madax ka ahaa xafiisyada warbaahinta, farsamada hubka iyo qaraxyada ee kooxda khawaarijta Al-Shabaab. ugu dambeyn sanadkan waxaa madax looga dhigay oo lagu daray mas'uuliyad kale oo ka weyntii tii uu horay u hayay, waxaana laga dhigay maktabka guud ee amniyaadka isagoo weli maamulayay maktabka xafiiska sancada walxaha qarxa iyo hubka. wuxuu ahaa gacanta midig ee amiirka kooxda khawaarijta Al-Shabaab Axmed Diiriye ama Abu Cubayda, wuxuuna loo diyaarinayay inuu noqdo ninka bedeli doona Axmed Diiriye. dowrka istiraatiijiga ah ee ninkani uu ku fadhiyay wuxuu ahaa maskaxdii isku xiraysay qorshaynta, farsamaynta iyo hirgelinta qaraxyada. wuxuu ahaa hagaha warbaahinta xagjirnimada iyo fariimaha cabsigelinta ninka gudbiya. ninka labaad haddaan sheegno waxaa la dhihi jiray Cabdikariim Maxamed Xirsi Qoorleex. wuxuu ka tirsanaa qaybta Al-Shabaab u qaabilsan howlgallada argagixisada ee dibadda. ninkan wuxuu ahaa mainly inta badan gudaha ayuu ahaa, laakiin Cabdikariim Qoorleex wuxuu isagu kaas cagsigiisu ahaa dhanka dibadda ayuu qaabilsanaa. wuxuu howlgallo argagixiso ka fulin jiray dalalka dariska. wuxuuna sidoo kale ka mid ahaa horjoogayaashii mas'uulka ka ahaa deegaanada Jubbooyinka. saamayntiisa istiraatiijiga ah ninkan marka la fiiriyo howlgalkan Al-Shabaab waxaa laga jaray marka loo fiiriyo waayitaanka ay waayeen ninkan lafdhabarkii qaraxyada, amniga iyo howlgallada dibadda. waxaa ku dhacay jahwareer hoggaamineed muddadii la dilay wixii ka dambeeyay
waxaa hoos u dhac ku yimid tayada iyo isku xirka weerarada waaweyn sidoo kale kooxdu waxay si ula kaca ay qiran laadahay dilka labadan hogaamiye kooxeed ee ka tirsanaa maleeshiyaadkooda oo muddo 3 toddobaad dhinsanaa way qiran laayihiin sababtoo tahay waxay ku lahayd saameyn weyn ayay ku leedahay jiritaankooda al-shabaab jiritaankooda laftooda sababtoo tahay maskaxyadii qaraxyada gudaha iyo kuwii dibadda labadiiba halkaas ay ku waayeen waxaan rabnaa halkaan inaan uga mahadcelino hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo runtii howlgalkan u ahayd maskaxdii ka dambaysay helitaanka macluumaadka xogta isla markaasna dawladda Mareykanka oo aan uga mahadcelinayno inay gacantii fulisay diyaaradaheeda mashruuca argagixis la dirirka la yiraahdo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan runtii ummadda Soomaaliyeed ugu bishaaraynaynaa in dadyowgii aan sheegaynay wixii qarax tragic iyo dhibaato iyo dareen iyo cabsi iyo walwal iyo dadka qaarkiis ilaa hadda ay la jiifaan dhaawacyadii ka soo gaaray qaarkoodna jirarkooda ay ku muuqato in ninkii ka dambeeyay oo injineer Ismaaciil ahaa looga aarguday ummadda Soomaaliyeed dhibaatadii uu geystay wixii qarax ahaa wuxuu abaabulay weeraro iyo qaraxyo xasuuq weyn sababay oo intooda badan ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxyadaasi waxaa ka mid ahaa qaraxii ceelgaabta ee ka dhanka ahaa madaxweynaha March sanadkii la soo dhaafay 2025 weerarkii godka Jilcow October 2025 qaraxii Zobe 14 October 2017 qaraxyadii ka dhacay kulliyadda Jaalasiyaad hargaha iyo saamaha 4 October 2011 Ex Control Afgooye 2028 December 2019 qaraxii ku magaca hasheeginkii ku magaca dheera wasaaradda waxbarashada iyo Zobe 29 October 2022 oo kii u dambeeyay ugu weynaayo Muqdisho ka dhacay ahaa qaraxyadii hoteelada xarumaha dawladda iyo goobaha shacabka waxaa halkan ku lifaaqan sawirkiisa Cabdullaahi isagoo jaamacadda dhiganaya markuu dhiganaya laga soo helay intii ka dambeysay wuxuu Cabdullaahi ahaa ama injineer Ismaaciil in wajigiisa qariya oo aan loo arkin laakiin ninkaasi waa kaas ah ciyaal Muqdisho ahaa injineer Cabdullaahi Cusmaan Maxamed Abuukar ama injineer Cabdullaahi Cusmaan Dheere ninkal oo loo yaqaanay kooxda gudaheeda injineer Ismaaciil waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho 22 bishii Juulaay 1982 wuxuu waxbarashadiisa dugsiga sare ka dhamaystay magaalada Muqdisho gaar ahaan dugsiga Imaam Shaafici sanadkii 2000 waxa uu 2002 waxbarasho waaday dalka Suudaan waxa uu dhigayay jaamacadda Red Sea la yiraahdo ama jaamacadda al-Bahr al-Ahmar kulliyadeeda engineering wuxuuna sanadkii 2007 aakhirkeedii 8 bilowgeedii ka soo qalin jabiyay jaamacaddaas asagoo soo bartay culuumta electrical engineering wixii intaas ka dambeeyay wuxuu ku soo biiray kooxda khawaarijta 2008 isla markii uu soo laabtayba wuxuuna bilaabay bilowgii horeba ka mid ahaa howlwadeennada ugu firfircoon warbaahinta al-shabaab intii u dhaxaysay sanadihii 2012 ilaa bilowgii 2025 sanadkii hadda dhamaaday wuxuu madax ka ahaa xafiisyada warbaahinta farsamada hubka iyo qaraxyada ee kooxda khawaarijta al-shabaab ugu dambeyn sanadkan waxaa madax looga dhigay oo lagu daray mas'uuliyad kale oo ka weyntii tii uu horay u hayay waxaana laga dhigay maktabka guud ee amniyaadka isagoo weli maamulayay maktabka xafiiska sancada walxaha qarxa iyo hubka wuxuu ahaa gacanta midig ee amiirka kooxda khawaarijta al-shabaab Axmed Diiriya ama Abu Cubayda
wuxuuna loo diyaarinayay inuu noqdo ninka bedeli doona Axmed Diiriye dowrka istiraatiijiga ah ee ninkani uu ku fadhiyay wuxuu ahaa maskaxdii isku xiraysay qorshaynta farsamaynta iyo hirgelinta qaraxyada wuxuu ahaa hagaha warbaahinta xagjirnimada iyo fariimaha cabsigelinta ninka gudbiya ninka labaad haddaan sheegno waxaa la dhihi jiray Cabdikariim Maxamed Xirsi Qoorleex wuxuu ka tirsanaa qaybta al-shabaab u qaabilsan howlgallada argagixisada ee dibadda ninkan